الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. waxaynu ku soo jirnay baabu macrifati calaamaati اlicraab, baabkii ku saabsanaa garashada la garto astaamaha icraabta iyo calaamadihiisa. waxaynu hore u soo tilmaanay calaamadaha icraabtu inay yihiin marka si guud la isugu daro tiradoodu 14. 14kii waxaynu soo marnay afartii ugu horeeyay, waxaynoo hadhay 10kii baaqiga ahaa. icraabtuna 4 nooc bay noqon jirtay: rafco iyo nasbo iyo khafdo iyo jasmo. waxaynu soo marnay rafcadii, waxaynu maanta insha allahu tacaala ka bilaabi doonaa darsigeenna nasbada. rafcada iyo nasbaduna waa labada nooc ee icraabta ka mid ah ee ka dhaxeeya isimka iyo ficilka. nasbadu waxay leedahay 5 calaamadood. 5tii calaamadood buu halkan inoogu sheegayaa sheekhu raximahu llahu tacaala raxmatan waasica. walinnasbi, nasbada ayuu u sugnaaday 5 calaamaatin, 5 calaamadood ayaa u sugnaaday nasbada. walinnasbi, nasbada ayuu u sugnaaday 5 calaamaatin, 5 calaamadood. alfatxatu, fatxo ayaa u sugnaatay. waalalifu, alif baa u sugnaatay. waalkasratu, kasro ayaa u sugnaatay. walyaau, ya baa u sugnaatay. wa xadfu nuuni, nuun la gooyey ayaa u sugnaatay. fa ama alfatxatu, fatxada miyaa, fatakuunu waxay noqonaysaa calaamatan astaan, astaantaas oo linnasbi nasbada u sugnaatay fii 3 mawaadica, 3 meelood ayay calaamatu nasbo noqonaysaa. fi lismi lmufradi, magicii kelida ahaa ee mufradka ahaa ayay noqonaysaa calaamatu nasbe. iyo wa jamci taksiiri, jamca la yidhaahdo jamcu taksiir. waalficli lmudaarici, iyo ficilkii mudaaric idaa dakhala calayhi naasibun, marka uu galo shay wax nasbiya, walam yatasil biaakhirihi shay-un, aakhirkiisa dambena waxba aanay la xidhiidhin oo xagga dambe aanay waxba ka raacin. wa ama alalifu, alifta miyaa, fatakuunu waxay noqonaysaa calaamatan linnasbi, astaan u sugnaatay nasbada fi lasmaa'i, magacyadii 5 shanta ahaa. alasmaa'u 5 waa magacyo 5. waynu soo marnay abuuka, akhuuka, xamuuka, fuuka iyo duu maalin ama xamuuki. sida ra'aytu abaaka, aabbaha baan arkay, wa akhaaka iyo walaalka, iyo wamaa ashbaha daalika, arrintaa wixii shabaha. wa ama alkasratu, kasrada miyaa, fatakuunu calaamatan linnasbi, waxay nasbada astaan iyo calaamad u noqotaa fii jamci lmudakari asaalim, jamca la yidhaahdo jamcu lmudakar assaalim. wa ama alyaau, ya-da miyaa, fatakuunu calaamatan linnasbi fi اtahniyati waaljamci, ya-duna waxay noqotaa calaamatu nasbo oo ay u noqotaa muhanaha iyo jamaca. jamac oo dhan ma aha, laakiin waa jamca la yidhaahdo jamcu lmudakar assaalim, ya-du. wa ama alyaau, ya-da miyaa, fatakuunu waxay noqonaysaa calaamatan, calaamad bay noqonaysaa, calaamadaas oo linnasbi nasbada u sugnaatay fi tahniyati, muhanihii iyo waljamci, jamci. wa ama xadfu nuuni, xadfu nuunka miyaa, nuunta oo la gooyo, fayakuunu calaamatan linnasbi, wuxuu calaamad nasbada u noqonayaa fi lafcaali 5, ficiladii 5 ahaa, allatii taas oo rafcuhaa, rafcinteedu bihabaati nuuni, nuun sugnaatay ay waxa weeyaan ku soo xasishay.
nasbadii iyo calaamadaheedii ayaynu ku jirnaa. nasbadii waxay yeelatay 5 calaamadood. 5tii calaamadood waxa ugu horeysa fadxo. fadxadaasi waxay noqotaa astaan ku tusaysa shaygani inuu nasbisan yahay 3 meelood. waxaynu soo marnay 4 shay oo lagu rafciyo damo. 4tii damada lagu rafcin jiray oo ahaa ismu lmufrad iyo jamcu taksiir iyo jamcu lmu'anath asaalim iyo alficlu almudaaricu aladi lam yatasil biaakhirihi shay-un. 4tii waxaa laga reebaya xaaladda nasbada jamcu lmu'anath asaalim. 3 kale soo hadhay oo ah ismu lmufrad iyo jamcu taksiir iyo ficil mudaaric oo wax nasbiya uu galay xagga dambena aanay waxba kala xidhiidhin, 3daasaa lagu nasbiyaa fadxo. nasbadana tacriifkeeda horeynu usoo qaadanay oo wuxuu ahaa taqyiirun makhsuusun calaamatuhu alfatxatu wamaa naaba canha. isbeddel gaara oo astaantiisu ay tahay fadxo iyo wixii naa'ib ka noqda. waxa naa'ibka ka noqda muxuu yahay? waa waxyaabaha iminka halkaa inoo yaalla ee alifta iyo kasrada iyo ya-da iyo xadfu nuun oo ah nuun la gooyey. waxaynu hore usoo tilmaannay baabu macrifati calaamaati alicraab. intaynu ku jirno nasbada waxaynu u tusaalaynaynaa bes almafcuulu bihi. waxaad inoo soo qaadaa isim nasbisan oo mafcuulun bihi ah. waxaa tidhi qadactu ashajarata. qadactu waxaan gooyey ashajarata geedkii baan gooyey. ashajara waa ismun mufrad, waa shay keli ah. marka aad nasbiso waxaad ku nasbinaysaa fadxo. qadaca zaydun. zayd wuxuu gooyey ashajarata geedkii buu gooyey. zaydun wuxuu noqonayaa faacil oo horeynu usoo marnay, rafcadii baynu kusoo marnay. qadaca waa ficlu maadin mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab. zaydun waa faacilu marfuucun wacalaamatu rafcihi addamatu daahiratu fi aakhirihi. haye ashajarata waa wixii la gooyey, mafcuulun bihi mansuuban wacalaamatu nasbihi alfatxa. shariba aطiflu labana. shariba wuu cabay aطiflu ilmihii yaraa wuxuu cabay allabana caanihii buu cabay. shariba waa ficilkii, aطiflu waa faacilkii, allabanana waa wixii la cabay, waa ismu lmufrad. inta kalena ada uga qiyaas qaadanaya. jamcu taksiir waynu soo marnay oo waa shaygii markii la jamciyey qaab dhismeedkiisii mufradka ay wax iska bedeleen. waa maa dalla calaa akthara min 2 maca tagayurin fii siiqati mufradihi. labna wuu noqon karaa, dhadigna wuu noqon karaa. waxaad inoo soo qaadaa alrijaal. alrijaal waa jamcu rajul, waa rajul oo la jamciyey. isbeddel baa ku yimi. waxaad odhanaysaa ra'aa caliyun rijaalan. cali wuxuu arkay rag. ra'aa waa ficilkii, waana ficil maadi. caliyun waa faacilkii. rijaalan wuxuu noqonayaa mafcuul bihi mansuuban wacalaamatu nasbihi alfatxatu aldaahiratu fi aakhirihi liannahu ismun mufrad. waa yahay ishtaraa bakrun ilkutuba. ishtaraa bakrun. bakr ninka la yidhaahdo wuxuu soo iibsaday alkutuba. waa jamcu kitaab, waa jamcu taksiir. waxaa lagu nasbiyey fadxadaas. ficilka mudaaric xagga dambe haddaanay waxba kala xidhiidhsamin oo alif الاثنين iyo waaw اljamaaca iyo yaa lmu'anathati almukhaadaba iyo waxyaabo kalena way jiraane haddii xagga dambe aanay kala xidhiidhsamin isagana waxaa lagu rafcinayaa addama. yadhabu, ya'kulu, yaqdacu, yashrabu, aqdacu, arxamu, atakallamu, asjudu. ficilka mudaaric haddii xagga dambe aanay waxba kala xidhiidhsamin damaa lagu rafciyaa.
tusaalayaasha aynu keenay dhammaantood hadday yihiin kuwii markii hore aynu ku tusaalaynay markaynu maraynay rafcada iyo hadday yihiin kuwa imika aynu marayno mid kasta waxaynu u tusaalaynaynay inta badan mid ay muuqanaysa calaamadii astaantii waxaa jira xilliyada qaaroo calaamadii aanay muuqanaynin oo calaamadii ay noqonayso mid muqadara ah oo aad odhanayso waxaa lagu rafciyey damatun muqadaratun calaa aakhirihi manaca min duhuuriha ayaa iyaduna kala duwanaata mar waxaa la yidhahdaa atacadur mar waxaa la yidhahdaa athiqal mar waxaa la yidhahdaa ishtiqaalu lmaxalli bilxarakati almunaasiba waxaasoo dhani adiga maanta kuma yaalaan في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء halkaa waxaynu ku dhaafnay calaamadii koobaad ee nasbada وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة ألفtu waxay noqotaa calaamatu nasbo magacyadii shanta ahaa في الأسماء magacyadii الخمسة shanta ahaa magacyada shanta waa taqaanaa ayaguna marka ay noqdaan mid nasbisan alif baa lagu taagaya waxaa lagu rafcinaya saynu soo marnay wow maanta waxaa lagu nasbinayaa alif ixtarim abaaka aabaha ixtiraam ixtarim waa ficlu amrin waana mabniyun cala sukuun faacilkeena waa ku qarsoon yahay oo bimacnaa anta weey maanta innaga waxaynu u jeednaa abaaka abaa waa ciddii la ixtiraamayay wuxuu noqonayaa mafcuulun bihi mansuubun wa calaamatu nasbihi ma alkaaf ba wa calaamatu nasbihi alalifu niyaabatan can alfatxati liannahu ismun min alasmaa'i alkhamsa hadha waxaad arki doontaa intaa mid lagu soo daro ayaa waxaad kutubta kale ku arki doontaa waa ismun min alasmaa'i asit waayo hanuunka ayaa lagu daraa waayahay waxaa tidhi ra'aytu abaaka yusallimu akhaaka calaa bay ku gudbaysaa taa iska daa waxaa tidhi ra'aytu abaaka yaxtarimu akhaaka ra'aytu waxaan arkay abaaka aabbaha waa mafcuulkii yaxtarimu waa ficil mudaaric waxa weeyaan waana waxa weeyaan la rafciyey halmaan hadal kuma jiray waxaan filayaa tusaalayaasha haddaynu tusaalaynaynay ficilkii rafcisan baynu tusaalaynay raggu maxay u baraarujin waayeen ficilka mudaaric marka uu naasib galo ficilka mudaaric marka uu galo naasib ayaa fadxo waxa weeyaan lagu nasbinayaa tusaalayaashaynu haddeer tusaalaynaynay isagiioo rafcisan buu ahaa war meena sida ahayn ficilka mudaaric xagga dambe haddii aanay waxba kala xidhiidhsamin oo wax nasbiya uu galo ayaa fadxo lagu nasbinaya yadhabu lan xagga hore ka geli lan yadhaba baabkaynu marayna waa kaa yasjudu lan yasjuda yarxamu lan yarxama akhruju maxaad odhanaysaa uriidu an akhruja yadxaku maxaad odhanaysaa uriidu an adxaka adxakadaas ayaa nasbisan lan yakhruja yakhrujadaas ayaa nasbisan waxa nasbiyeyna waa waxyaabaha nawaasibta ahee galay ayib kasradii ayaa inoo hadhay oo noqonaya shayga saddexaad wa ama alkasratu fatakunu calaamatan lilnasbi fi jamci almu'anath asaalim kasrada miya kasradu waxay noqonaysaa calaamatu nasbo shayga la yidhaahdo jamcu almu'anath asaalim jamcii badnaa ee tiradiisu ay badnayd ee dhadiga ahaa amaba labka ahaayee isimkiisa mufradka ta'du ay ugu dambaysay marka la nasbiyo waxaa lagu nasbinayaa kasro kasradaas waxay noqonaysaa niyaabatan can alfatx
مسلمات ودمر كي بدنا markaad leedahay dumar fara badan waxaad oranaysaa ra'aytu muslimatin waxaan arkay dumar fara badan waxaad tiri faadimaat markaad ka dhigto mafcuul bihi maxaad oranaysaa haye ra'aytu faadimatin waxaa lagu nasbinayaa kasradaasi waxay noqonaysaa mid naa'ibka ah fadxada waayo baabkan marka la joogo waxaa asala fadxada asal ah wa amma al-kasratu fatakunu calaamatan lin-nasbi fi jamci al-mu'annath as-salim jamcu al-mu'annath as-salim shayga loo yaqaano kasrada waana lagu nasbiyaa waana lagu khafdiyaa وأما حذف النون نون تقول للجويميا فيكون علامة للجزم فيكون علامة للنصب وحو علامة نصب النقضة في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون شيء قال يراده الأفعال الخمسة أفعال الخمسة وحويان فعل كمضارع حق الدنباء كلا حدير سمي ألف الاثنين ألف تكتوسي سيلبضة أما واو الجماعة وود كتوسيس رقا بدن أما ياء المؤنثة المخاطبة ياء كتوسيس حويان حلقة دمر إلى الله الليو فعلكم مركو نوعا نقضو وحين هرو صامرني إن لقو رفعين شري شيء قال يراده ثبوت النون ما أنت وحالقو نسبنا يا حذف النون يذهب مركاد لا هاي لبا تجيا أما لبها نقدان أما ددقها نقدان وحضرنا سيذهبان تذهبان رقبضا مركات كاركتو حضرنا يذهبون أما تذهبون فأين تذهبون قبل قرى مركات لها ليسد تذهبين أيضا نساء markuu sida ay yahay wax nasbiya iyo wax jasmiya midna aanu xagga hore ka galin wala rafciya waxaana lagu rafciyaa thubutu an-nun hadii waxyaabaha wax nasbiya xagga hore ay ka galaan midalan an baa ka gashay yadhabani soomay ahayn yuridani an yadhaba ayadranisa yadhabani di waa la goynayaa nuuntii xagga dambe kaga jirtay yuridani hatri يا له وما اليوم يريدان أن يذهبا وصنغنينا يريدان وحيدونيان أن يذهبا إني تغان أنا وحي نقنيسا حرف نصب يذهبا وحضريسا وفعل مضارع منصوب وعلامة نسبه حذف النون ألفتن يذهبان كترتانا وفاعل يذهبون محاضرين مركز أنجلسو يريدون أن يذهبوا أنا وحي نقنيسا حرف نصب يذهبوا وحي نقنيا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون وهذا سنة وفاعل تريدين أن تذهبي أنا وحي نقنيا حرف نصب تذهبي فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نسبه حذف النون هذا سنة وفاعل يأذو قرمي نقنيسا علامة نصب وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع شيء مثنها الأورنشري إلا بدا شيء كتوسي مركا أو نقضو مد نصبسا وأين كبلاني إنين كتوسالين أو مفعول به وحالقو نصبنا إياه وعلامة النصب دي سينقنيسا الياء وحاتري انكسر القلمان لبدي قلم باتشبي ومركو رفع سيهي مركات كدكتو مفعول به محضر نساء اشتريت قلمين أيضا نساء هيا اشتريت مفتاحان بونقوني هدو يهمد رفع سن اشتريت وحني بسرين مفتاحين
يأداس أي نقنيس علامة نصب مسلمان وحويان لبنين مركز لدي لبنين أو مسلمين بان أركي حضنا رأيت مسلمين جمعنا وحوج هذا جمعي لوننشر جمع المذكر السالم أو أها جمعي كتسايي رق بدن مسلمين بعضنا يسار رق بدنا مؤمنين بعضنا يسار هذا waxaa xoogaa bidhaantoodu isu soo eeg tahay ya-da musannaha marka uu nasbisan yahay iyo ya-da jamaca waxaa jira calaamad lagu kala garto oo fudud shaygu hadduu yahay laba ya-dan xarafka ka horeeyaana waa fadxaysan yahay ka dambeeyaana waa kasraysan yahay ya-da musannahu waxa weeyaan yaa-un مفتوح ما قبلها مكسور ما بعدها مسلمين مؤمنين واقفين حاضرين غائبين مركاد متكست أو كوا كمد حق هراء كراعسد وحكينا يا إلا نصبيه حدي ويا الشيء قاسي جمع أو جمع بدنا جمع المذكر السالم وياهي حرف ككهر يأدو وكسرسين يهي كقدم بيانا وفتحيسين يهي حاضرنا يسا مسلمين مخلصين مفلحين هذا شيء قاسي هدو يهي جمع المذكر السالم أو نسبسين يهي يأديسو جمع حقه روا كسرسين حرف ككهر يأدو كقدم ينا وفتحيسين يتكلنا وعكس غيره وللخفض 3 علامات خفضه وحا اسغناداي 3 علامات اما 3 استامود ايا اسغناداي waxay ahaayeen 3daasi الكسره iyo الياء iyo الفتحة خفضة تعريف كده وحوها تغيير مخصوص علامته الكسرة وما ناب عنها اسبد القارعة وعلامة ديسا هي أستانتي سعيتاي كسرة هي وحي كنا ابن نقضة هل كده قلي كره فأما الكسرة كسرة مياه فتكون علامة للخفض في 3 مواضع علامة خفض وحي نقطة 3 ميلود في الاسم المفرد المنصرف اسم كي مفرد كاها المنصرف تنوين تأيي كسرة أقبلاي وجمع التكسير iyo jamci la oran jiray jamcu taksiir oo ah jamci burburay al munsarifi ee tanwiinta iyo kasrada aqbalayay iyo wa fi jamci al muannathi as-salim iyo jamca la yiraahdo jamcu al muannath as-salim wa amma al-yaa'u ya'dam ya fatakunu alamatan lil khafdi fi 3 mawadi'a ya'dam ya ya'du waxay noqotaa calaamatu khafdo 3 ميلود في الأسماء الخمسة أسماء الإرادة الأسماء الخمسة وفي التثنية إيا مثنيه أو شيء لبدا ككوبناء إيا والجمع جمعي وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف فتحة مياه علامة خفض وحي نقطة مقع على إرادة الاسم الذي لا ينصرف أو مقع آنا يقلي كرين حقي صدنبه تنوين كسرنا آنا يقلي كرين خفض وحي لهي 3 أستامود أفرت النوع إعرابته ونوعي كغارك أها شيء لو يقانو اسمك
saddex calaamadood bay leedahay kasro oo baabkan marka la joogo asal ah iyo laba naa'ibka ah kasradu waxay noqotaa astaan ku tusaysa shaygani inuu khaftisan yahay saddex meelood meesha koobaad waa ismul mufrad oo waliba munsarif ah munsarif waxaa loo jeedaa waxaa jira magacyada qaar ka mida oo xaggooda dambe aan la kasrayn karin oo in la kasreeyo ay tahay qalad sidoo kale aan la gelin karin tanwiin waxaa jira markaas magacyadaas xaggooda dambe kasradana aan la gelin karin tanwiintana aan la gelin karin sababo keena oo 9 ah oo la yiraahdo ciladaha diida shaygii in la sarfiyo oo la geliyo tanwiin iyo kasro kuwa kitaabkeenu inooma sheegin adigu waxaad haysataa isimku hadduu yahay ismun mufrad ismu maa la yansarifna aanu ahayn oo magacyada ay mamnuuca ka tahay xaggooda dambe in la kasreeyo aanu ahayn xarafka ugu dambeeya waa la kasreynayaa haddii uu galo waxyaabaha isimka ku keenaya in la jaro ama la khafdiyo مثلا مقع إبراهيم حرف كيس وقدم بيا أما والا ضميا أما والا فتحيا لما كسريو وحال إرادة اسم ما لا ينصرف إلا ذا أديدي وذلك دونتا إن شاء الله تعالى العالمية والعجمة أي لا إرادة مقع أحمد محاضر رئيسا جاء أحمد رأيت أحمد مررت بأحمد أردن ميسد جاء أحمد رأيت أحمدا مررت بأحمد عربي هام بقلد النقنيسا مركا لليه اسم كحقي صدنبه لما كسرين كرو ولما تنوين كرو معنوه ماها إنانا تكون واقع كرين واد كون واقع كرتاي واحد نقنيسا هداد سيدا سميسيد قف قلد كقلي لقد عربيد أو لقد سعاني سحنين هذا اسم كمفرد كأ منصرف كأ هدي حقه رأي كقلان وحيابها وحجرة واتكسرين سا واحد نوصو قادا زيد مررت بزيد الباء محاضنة حرف جر زيد اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وحاتري القلم على المكتب القلم قلنكي على المكتب ميسكي بدل سارن يهي على وحنقني حرف جر المكتب وحنقني اسم مجرور هيه بعلى على بالوجري وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وحاتري جئت من البيت إلى المسجد جئت وفعل يفاعل وضمير كاسا يساق فاعل وهل كي فاعل كيالا من البيت من وحضرنسا حرف جر البيت اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره إلانا وحرف جر المسجدنا واسم مجرور بإلا وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وأنا منصرف وحاجة دمبه حلقة قليي كسر جمع تكسير وحوها شيء بدنا مركي للجمعيي
qaab dhismeedkiisii mufradka ay wax iska bedeleen sida الرجال oo kale maxaad oranaysaa للرجال نصيب للرجال laamkaas wuxuu noqonayaa xarfu jarin الرجال muxuu noqonayaa اسم مجرور باللام وعلامة جره الكسرة وحاتر أن مررت هي بالمساجد مرهدي الله قاليو ولا كسريني بعد سوح نقني حرف جر المساجد وحنقني اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره وحضرك دونت هدي أشياء لغا سارو إمك مساجد أو كله تنوين تي كسرته مقلان تنوين تي كسرته مقلان إيه جمع على إرادة جمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم وحوها جمع كتسي دمر كتراد بدن سيدا مسلمات قائمات حاضرات واقفات ذاهبات يوحي لمده فأما الكسرة فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الاسم المفرد المنصرف اسم كالإرادة اسم المفرد المنصرف منصرف كا تنوين كسرة أقبل وجمع التكسير جمع التكسير كالأورنتري المنصرف وفي جمع المؤنث السالم وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع يأذن واحد نقطة علامة خفض صدح ميلاد الأسماء الخمسة مقعيدي شنطها رفع عدم حين كسو مرني حالو رفعين تري الواو نيابة عن الضمة نصبدنا محين كسو مرني وحالو اسمين تري هيه الألف نيابة عن الفتحة ومركين مريني نصبدا ما أنت غاين مرينا خفضنا وحالو خفتنا يا الياء نيابة هيه عن الكسرة نيابة عن الكسرة وأما الياء فتكون علامة للخفض في 3 مواضع في الأسماء الخمسة مررت بأبيك ودراسة بأبيك وفي التثنية مثنيه والجمع جمعي هل كاهن وجوك والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما أنت حبسا بانا هايو حبسا كيبا هلماني نقول بديار هالي هذا وإذن كي رضاها مركي هوريه